nin dhagool ah oo farta lagu wada fiiqaayo wuxuu ogaaday inuu gardaran yahay macnaheedu waxa waaye madaxweyne Farmaajo Soomaaliya oo dhan way arkeen waxa uu kaga dan leeyahay ama uusan raadinaynin cadaalad loo raadinayo ikraan inuusan raali ka ahayn mudane madaxweyne ma jirto hay'adaha dawladda hay'ad ka sarreysa garsoorka marka la tago macnaheedu ma aha in dib loo soo celiyo dacwad ka furan garsoorka dalka oo lagu raadinayo dambiyadii laga galay ikraan tahliil faarax madaxweyne dalka ugu sarreeyay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam bar su'aal la weydiiyo la yiri dambiye la galay kay ugu weyn wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la shirki yeelo oo wax la wadaajiyo makhluuqaadkiisa waxa la weydiiyay waxa ku xigo wuxuu yiri dambi la galo waxa ugu weyn oo yiri marka laga imaado shirku billaah dhiig la daadiyo mudane madaxweyne wadanka aad mas'uulka ka tahay hay'adihii aad maamuleysay dad ka shaqeeyo oo ay ka mid yihiin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka baa waxay galeen dambi ay ka galeen gabar Soomaaliyeed familkeedii oo dhan victim ay yihiin cadaalad inay laan ay raali ka yihiin adigana waxaad mar walba aad sameeysaa adigoo si waxa waaye nasiib darro adigoo aanan ka tacsiina maalin waxaad sameeysaa cadaalad ikraan inaad hor istaagtid oo garsoorkii dacwadii laga furay aad hor istaagtaa gudiyo kale aad ka daba magacawda sharciina ma aha waxaan fiilaa inaad meesha iska joogto aadan garanaynin sharciyada dalku yaalo garsoorka wax ka sareeya ma jirto mudane madaxweyne oo dacwad laga furta waxaan rajaynaa inaad qaadin doontid wax badan in dadka fariimaha ay ku soo dirayaan ee ah in ikraan loo helo cadaalad inaad aqbali doontid maxaa yeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala dad wuxuu jecel yahay qofka soo laabta oo cafis iyo dambi dhaaf weydiista waxaan rajaynaa arinta ikraan inaad ka tacsiin doontid kadibna aad wado u qaadi doontid sida loo heli lahaay cadaaladeeda runtii si fool xun ayaa loo dilay sida la sheegayo waaba hadii la dilay mudane madaxweyne waxa fiicnaan lahayd arintaas inaad ku taageerto ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen Roble wuxuu ku mahadsan yahay run ahaantii sidii uu istaagay guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliya iyo culimada Soomaaliya ee ka soo kala hadlay dalka gudihiisa dibadiisa ayagana waan ugu mahadcelinaynaa dumarka Soomaaliyeed ayagana aad u qiiroodeen way dareemayaan xanuunada ka jira deegaanka iyo waliba hablaha iyo dhibaato loo geysanayo madaxweyne Soomaaliya waa wada victim dhamaanteed haddana cadaaladan ma laga harayo in garsoor loo helo gudidan ama magacawdeena wax anfacaya maaha mudane madaxweyne raali gelin ayaa lagaaga baahan yahay warqadii aad soo qortay inaad ka laabato raali gelin aad ka bixiso tu kala soo saarta garsoorka kula hadlaysid in gabadhaas cadaalad ay hesho sida ugu fiican iyo sida ugu wanaagsan inaad amartan way wanaagsanaan lahayd aadan u maasan tahay dhammaan sidoo kale waxaan u mahadcelinaa madaxdii hore iyo dhaqankii hadlay xildhibaanadii hadlay odayaashii bulshada qaybaheeda kala duwan runtii cadaalad way u baahan tahay ikraan qof kastaan u baahan insha Allah taala Soomaaliya oo victimiskan ka wada baxdan insha Allah taala waa rajaynaynaa dawlad khayr qabtan waan u rajaynaynaa dalka oo cadaalad u fasha aadan u maasantii dhamaantii salaamu calaykum waraxmatullaahi